بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxa magaalada Muqdisho nooga furmay shirka caadiga ah ee hay'adaha go'aaminta ciidamada heeganka Bariga Afrika East Africa Standby Force oo ay marti gelinayso dawladda federaalka Soomaaliya shirkan wuxuu socon doonaa 13 ilaa 18 December 2025 waxa uu isugu jira dhowr heerar oo kala duwan heerka koobaad oo maantay aan furayno oo ah technical expert working group heerka labaad oo ah guddiga taliyaasha ciidamada iyo amniga chief of defense and security iyo shirka ugu dambeeya oo ah midka golaha wasiirada gaashaandhigga iyo amniga inta uu socdo shirkan waxa si qoto dheer looga doodi doonaa horumarinta East Africa Standby Force qorshe hawleedyada 2025 iyo 2026 miisaaniyadda East Africa Standby Force 2026 warbixinada xisaab xirka warbixinada guddiga madaxa bannaan ee qiimeynta saameynta colaadaha DRC ay ku yeelatay gobolka Bariga Afrika sidoo kale shirku wuxuu muhiimad gaar ah siinaya xoojinta iskaashiga amniga gobolka doorka East Africa Standby Force oo ay kahortaga ay kamid tahay kahortaga khataraha amni iyo ku qaadista nabadda iyo xasiloonida guud Bariga Afrika dawladda federaalka Soomaaliya runtii waxay ku faraxsan tahay inay marti geliso shirkan muhiimka ah taasoo muujinaysa doorka firfircoon ee Soomaaliya ay ku leedahay amniga iyo iskaashiga gobolka.